الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة dadweynaha iyo maamulka baarlamaantiin waa idin mahad celinaya. intaa kadib darsi ku saabsiisan qofka muslimka sugnaantiisa iyo toosnidiisa uu ilaahay kitaabkiisa ku toosnaado iyo diinta islaamiga ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa. dhaqanka aadanaha ma aha in weecweecad laga waayo. aad bay ugu adagtay bini aadamku inuu qumanaado bes. waxay dhahdeen min caadati linsaan waxaa ka mid ah tadabdub, inuu isbedel uu ku dhaco. waa caadada bini aadamka fii kulli shayna weeyaan tadabdubkaasi. hadday shaqo tahay, hadday dareenka tahay iyo mashaacirtiisa, hadday tahay nashaadkiisa iyo activitigiisa. qofka bini aadamkii bay dhahaan joogtayntu sideeday ugu adagtay. sida awgeed mar waa nashiid, mar waa caajis, mar shaqo badan buu qabanayaa, mar waa wahsanayaa, mar dareenkiisa farxad baa ka muuqata iyo raynrayn. isbeddelkaasi markaa bini aadamka dareemadiisa asal buu ka yahay bay yidhaahdaan. inuu markaa sugnaado toosnidu iyo qumanaantu, istiqaamadu iyo habaadku, sugnaantu waa isku macno dhadhow yihiin. midi waa inuu qofku mabda'a ku toosnaado, aanu ka weecweecan. inta badanna marka laga warramayo shahwaati nafsiga iyo wixii la halmaala ayaa la yidhahaa qofku waa inuu sugnaadaa, waa inuu toosnaadaa, qumanaadaa. mararka laga warramayo shadaa'idda iyo mashaakilku markuu qabsadana waxaa la tilmaamaa iyana waa qumanaantii una, laakiin sugnaan bay ku tilmaamaan. marka haddii la yidhaha waa habaat iyo haddii la yidhaha waa istiqaama, marna waa isku macna intooda badan. mararka qaarkoodna waa la odhan karaa bacdu awjuh اlikhtilaaf baa ka jira. ilaahay baa ku yidhi wacbud rabbak, rabbigaa caabud intaad geeridu kaaga imanayso, intaad yaqiinta ka arkayso. si awgeed waxaa matluuboo laynaga wada rabaa, ambiyada laga rabaa, dhasha ambiyada laga rabaa, dadweynaha caadiyana laga rabaa. waxaa laynaga wada rabaa waa maxay? ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. inaynu alleh subxaana wa tacaala ka dhowrsanno oo aynan geeridu inoo iman ilaa iyo inaynu muslim nahay mooyaane. maadaama nebiga ilaahay ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin, nebiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badan ee uu ilaahay ku baryayey xadiidka tirmidi ibni maaja warinayaan, sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay. waxa badnaa baa la yidhahdaa nebigu inuu ku ducaysto yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik. ilaaha aadanaha qalbigiisa gegediyow, qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada. saxaabi baa weydiiyo wuxuu yidhi yaa nabiy allahi aamanaa bik wa bimaa ji'ta bih fahal takhaafu calayna. oo waaba ku rumaynay, wixii aad la timina waa rumaynay, miyaad noo cabsanaysaa? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam, ina alquluuba bayna usbucayn aw bayna isbicayn aw bayna isbacayn. taba waa la akhriyaaye. ina alquluub, qalbiyada bini aadamku waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid ah. yuqallibuhaa kayfa yashaa, ilaahay baa siduu doona u gegediya. maadaama gegadoonku uu suurtagal yahay, nebi maxamed wuxuu baryayaa ilaahay subxaana wa tacaala in rabbi qumanida iyo toosnida iyo sugnaanta uu ku hayo. waxaan rabnaa markaa dadaal badan inaynu ku bixinno waddada dhexe
naf iyo shahawaadkeedii baa jira shayaaiin alinsi waljinni baa jira mahma adigu aad tala gaadho caqabadaa ku hortaagan cid kugu riixaysa jidka inaad ka weecato tiro badan baa jira oo ay ka mid tahay shahawaadka lagugu abuuray lagugu itixaamay shahawaatu nafs xoola jacayl baa kugu jira xidhiidhka rag iyo dumarka dhex maraa qof walba ku jira baahiyo badan baad qabtaa waxaasoo dhammi waa wax kugu riixaya sidii waxaa loo heli lahaa inaad u xidhxidhato mar labaad waxaa jira shayaaiin aljinni walins dadka bar shaydaama ah oo ilaahay ku tilmaamay inay shayaadiin yihiin dee wixii waddada qaldan dadka ugu yeedho o dhan baa shaydaan ah ama jin ha ahaado ama insi ha ahaadee marka shaydaannimadu waa dhaqan aadanuhuna leeyahay jinkuna leeyahay jinka inta dadka xumaha ugu yeedha waa shaydaamo aadanaha inta xumaha ugu yeedhana waa shaydaamo haddii bini aadamku uu adkaysan kari waayo xaqa weydaarto oo kuwa aad aqbasho isagoo ilaahay nabigiisii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftarii calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati waضicfa almamaat ثم لا تجد لك علينا نصيرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمد هرسيت كيدي هقامية هيدي وأمد عدي كدا ينيسي لكن إلهي وحلي وحد أدوات وحي أدواتين إني كافتنا أيام وحي أنكو وحيون وحكمدا سياد waxaan ahayn noogu been abuuratid baa ilaahay litaftarii calayna hayra waidan latakhaduuka khaliila haddaad tooda aqbali lahaydna waa ku soo dhowayn lahaayeen baa ilaahay leeyay saaxiib bay kaa dhigan lahayn aadamaha barh baa jira kugu dirqinayo kugu cadaadinaya xagga xumaha inaad u weecato ama bulshadu ha noqdo dhaqamiyo xeerar ay leedoo diinta khilaafsan ama ha noqoto dhan hunguriyo ay kaa soo maraan ama wuxuu doonaba ha noqdee dadka barh baa jira kugu cadaadinaya inaad u kacdo xagga ambadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa nebigiisii xataa inay isku dayayeen calayhi salaatu wasalaam inay dhankaa u kaxeeyaan ilaahayna wuxuu sheegay haddaad ka aqbasho latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa soo dhiganayaan markaa wararkaa hebel waa nin ragaa lagu leeyahy waa markaad jarka ka boodo waa lagu soo dhowaynayaa ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu leeyahy walowlaa an habatnaak haddaanan annagu ku sugi lahayn laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed sidaa loo gelayo maxaad adigu u malaynaysaa qof feejigoo soo jeeda oo waxna garanaya sax iyo qaladku u kala cadyiin diinka iyo diinla-aantu u kala cadyiin soona jeeda oo mowqif qaadan karaya ayuunbaa badbaadaya ilaahay wuxuu leeyahy nebigiisii moxamed ah haddaad weecan lahayd idan laadaqnaaka dicfa alxayaat waa laysu idaafeeyey dicfa alxayaat dicfigu asliyan waa laban laab halkan laakiin waxaa looga jeedaa bay leeyihin shiddat alxayaa nolosha adeeggeedaanu ku dhadhasiin lahayn kadeedkeedaad wax ka arki lahayd gefkaaga abaalmarkiisaaad arki lahayd baa ilaahay leeyahy haddaad waddada qaldan cararto waddo qaldan waxa ka yimaadaan waa maxay waa waxaan la mahadin marka ilaahay nebigiisii wuxuu ku leeyahy haddaad jidka qaldan mari lahayd abaalmarkeedoo kakan baad arki lahayd wadicfa almamaat ay qabla almowt bay culammadu iyadana ku tilmaamaan taa macnaheed waxa weeyaan dhibaatadu aadamahay ka timaadaa wuxuu sameeyo haddaad markaa xaqa weydaarataan mashaakilkeedaa la kulmaysaa cid kaleo kuu gargaartana haddii ilaahay imtixaanka kula rabo ma jirtabaa alla tilmaamaya qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa carabi mahmaahay taqaanay
حجرت بي مفسرين تشيغان إسلام حنوسنيسي هورير مكاد هايد قالنك هوري حرق بي تدعدا تدع صامة غانين حرق بي صوهدايو تدعدا قالك دمنا وي فرفرطاه marka waa qof madaxa looga jiro taas waxay keensatay inuu galina wax dhiso galina wax dumiyo bini aadamku waxa laga yaabaa inaad tiraahdo war qofkaasi waa waalay in badan oo dadka ka mid ah sida ku wada masaajidka soo galaysaa waad cibaadaysanaysaa waad wardiyaysaa hadhow baad noqonaysaa maqaaxida tagaysaa dadkaad xamanaysaa waxbaad akhriyaysaa intii yareedaad soo shaqotaad rogaysaa haddana saaska rogada marka marna waad xaggaad u socotaa saacada kalena haddana xagga kale aad u socotaa waxaa laynaga rabayna waxa inaynu sugnaano khayrkeenu shaqaysano inaynan iska dayacin inaynan xan iyo damnuub iyo mashaakil kale ku dayacin waxoogaa yara khayrkaad soo shaqaysato sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay walaa takunuu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaatha halla mid noqonina sidii tii xadhigay tidicday soo hoday dib u furfurtay intay adkaysay kadib baa ilaahay leeyahay tii xadhigay intay tidicdo haddana dib u furfuraysay taasoo kale ha noqonina baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala aadanuhu waxaa dhacay inuu wanaag hayo laakiin mararka qaarka inuu daciifo dabeetana istiqaamadu ka lunto walciyaadu bilaahi iyo dadka badhbaabay kaba luntaaba diintuba marka hore bini aadamku xaqa xoog uma wacdaa in yar buu wacdaa angal yar 2 degree 1 degree baa laga yaabaa laakiin muddadu hadday dheeraato israarkaagu iyo dembi ku madaxadaygaagu hadduu bato angalku sii dheeraanaya masaafadu markay korodho xaqa waad ka durkaysaa in badan baad durkaysaa saa awgeed ayaa nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in la arki doono dad waqti aad waa bariisan doonta adoo mu'mina yusbixu rajulu mu'mina wayumsi kaafira buu nebigu yidhi gelinka dambena uu gaalnimo ku dhici doono mid gelinka dambe gaala oo gelinka horena islaamay maxaa dadka sidan u wada ee diintoodii marnay ugu soo noqonayaan marnay uga baxayaan wuxuu nebigu ku tilmaamayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya adduunkiisii diintiisiibuu wuxuu siisanayaa in yaroo adduun ka mid ah midi sultad iyo magac iyo maamuus buu siisanayaa midi maal iyo wax buu siisanayaa waxay doontaba ha noqoto shahwaatu nafsiga wax ka mida uun marka wuxuu nebigu ku tilmaamayaa qof ilaa iyo xaddiinka baxa ay la gaadhayso oo gelina muslimna gelina gaal noqonaya sababtuna ay tahay hunguriga adduunyo qofkan jiitay ilaahay quraanka tusaalayaal badan buu markaa inugu siinayaa nooc walba ka mid ah tusaalayaalka quraanku bixiyo waxaa ka mid ah duul culamaa ahaan jiray oo ilaahay aayaadkiisa yaqaanay oo dabeetana fitmoobay oo kadibna kitaabka xagga dambe ka xooray soomaalidu waxay dhahaan wadaadka hebel waa kitaab xoor يعني كتاب بوسيدان جري ما انتصه نين كتاب لو يديني ما هي كتاب كمال بوس كدغاي شقا كلو ودا وقف وحقرنا يي لكن عن قصد وقوعدي ما العلا عرري إلهي مركز حولي نبي عليه الصلاة والسلام واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين dadka waxaad ku dul akhridaa oo uga warantaa kii warkiiba ilaahay yiri waxba lama magac dhabin kii warkiisa dadka u sheeg kani muxuu ku caan baxay awalan ataynahu ayatina ba ilaahay yiri aayadka iyaga baanu siinay waa mid wax garanayay aqoonyahana caalimaha لكن فانسلخ با إلهي وكسيم انسلخ وحالة الماما نف كارغا مركا هرق لغا سيبايو كانما كتاب كوار سوچو غوليو سينيس كسيبايو إلهي وحكوت الماما فانسلخ وكسيبتي
diinkii iyo aayaadkii la siiyey waa ka siibtay oo faatbacahu shaytaan shaydaan baa raacay shaydaan baa raacay isagaaba laga yaabaa hadduu caliimulisaan yahay isagaaba laga yaaba inuu shaydaanka macallin u noqdo shaydaanku dabagalo isaguu noqdo imaamka shaydaan wax ka baranayo saa dadka loo hallaabiyo ama inay isku wadda yihiin oo israaceen fa kaana min alghaawiin baa ilaahay yidhi inta luntay buu ka mid yahay haawiga waxaa la yidhaahdaa waa ضد الrushd waxaa la yidhahdaa haawiga daalka waxay yidhaahdaan inta badan waa qof aan wax garanayn oo lumay haawiga se waxay yidhahdaa waa qof wax garanayoo lumay ilaahayna nebiga labadaba waa ka anfiyey maa dalla saaxibukum wamaa gawaa mid aan badana maaha miduu ka suga weecanayana maaha baa la yidhi ilaahay wuxuu kan ku tilmaamaya inuu haawiinta ka mid yahay kuwa wax garanaya laakiin aan baday xaqa dhinac maray waa dhici karta qof inuu noqdo waa dhici karta inay bulshaduba saa isku raacdo iyadoo xaqa garanaysa inay derderto bulsho badani jamaaco badani dad badani si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya reer banu israa'iil dad ka mid ah ahlu kitaabkii dad ka mid ah fakhalafa min bacdihim khalfun kuwoodii fiicnaa baa ilaahay ka warramay iyo dad wanaagsan inay lahayeen jiilal hore aabbayaal magac iyo maamuus lahaa inay ku abtirsanayeen laakiin ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun kuwaa duul baa gadaal maray duulkani maxay ku caanbaxeen awalan warisu lkitaab waa duul dhaxlay kitaabka inta badan mabaadi'da dadka u soo dhintee naf iyo maal u soo huraa kama tagaan dadkay laakiin dhaxalka ku soo gaadhee si qabow ku soo gashay baa inta badan dayaca bilaaba dhaqankeenna waa aragteenoo odayga xoolaha ku dhidadaya shaqaystay aad buu u ilaaliyaa inay ka dayacmin odayguse markuu dhinto carruur iska barwaaqo kori markay xoolaha helaan inba meel bay ka tuuraan oo yarunbaabay kaga soo hoydaan diinka ciddii u soo dhimatay ee u soo halgantay ee wixii loo soo maray ogayd way xejisataa laakiin waxaa la tilmaamay qolo iyagu dhaxal ku heshay oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood iyo dadkii ay ku abtirsanayeen oo muslimiina unbay la dhasheen ayunbay ka dhex dhasheen dabeetana islaamnimadu dhaxalkaasay ku soo gaadhay ilaahay wuxuu yidhi kuwii hore qaar baa ka gadaal maray kuwani waa qaar kitaabka dhaxal ku helay laakiin maxaa u caado ah ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun miluh ya'khuduuh kuwan caadadood waxa weeyaan bidhbidhka adduunya hadday helaan way iska qaataan dabeetana waxay dhaha ilaahay waa ghafuuru raxiim ilaahay baanu dembi dhaaf ka sugaynaa wuxuu doonuu samaynayaa waxaanu leeyahay ilaahay waa ghafuuru raxiim ilaahay baa noo dembi dhaafi buu taagan yahay ma dembi dhaafkan uu sheegayaa ma toobad dhabbaayo bini aadamka waa dhacdaa inuu gafo laakiin uu soo noqdo oo sugmo ma soo noqosho sugitaana maaha baa ilaahay leeyahy ee wain yaatihim caradun milu yaakhuduu mar labaad hadday soo martaan halkii unbuu ka wadayaa jidkan saasuu hayaa baa ilaahay leeyahy alam yuukhad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquuluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun ilahay wuxuu leeyahy miyaan kuwaa ballan laga qaadin ilaahay subxaanah wa tacaala kuwaa miyaanu ballan ka qaadin miithaaqu lkitaab miyaan laga qaadin inaanay ilaahay waxaan xaq ahay ka sheegin kitaabka miyaanay daraasaynin daarta aakhiro ayaa u khayr badan liladiina yattaquun kuwa ilaahay ka cabsada warmaanku xaguu idinka qabtay baa ilaahay leeyahay afalaa tacqiluun caqli maanu jirin dabeetana kuwa cagsigoodaa ilaahay tilmaamaya kuwii kitaabka ku dheganaa والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا يجو كتابك هسته ووحك استوي ما أنسي دين إلهي كتاب كيس أيها الأحبة مرك بني آدم هدي الزمن كل يراضه
imtixaanku bayaro bataan waxaad moodaa inay diinta faraha ka qaadaan ama inay iska yidhaahdaan ilaahay waa kafuuru raxiim tae waxay doonaan sameeyaan laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa mu'miniintii hore rag inay ka mid ahaayeen naf iyo nafiisba diintooda u bixiyay inay ku sugmaan iyo kuwa waddada hayo sugaya min almu'miniin rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وحكم دبا إلهي إليه مؤمنين ترق صدقوا ما عاهدوا الله عليه كر شيء وحي إلهي وبلن قادين كسقنا ذي مبدأ أوده منهج كإلهي أن نبا وقوي عنين رقاسي وحكم دا كوا ساقود انتي يكوا وليتشت كي هيو سقيا وح اسبدلنا نقول عين اسبدلنا الصبينين mabaadi'dooda iyo diintooda kala qaalisan arwaaxdooda iyo naftooda saa daraaddeed waa musiriin mana aqbalayaan maxay tanaasul wax la yidhaahdo inay diintooda wax ka tagaan ma aqbalayaan ilaa iyo ay ka geeriyoonayaan ilaahayna wuxuu tilmaamay kuwaa sugma xilliga shiddadana in ilaahay sugi doono ama naftu markay baxaysa ha noqoto tawxiidka ay ku dhiman doonaan ama malaa'igta wax argagixisee munkar iyo nakiire xabaasha dadka ugu timaada ha noqoto markay su-aasha weydiinayaan ilaahay wuxuu leeyahy yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhira wayudilu allahu aldaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay waa sugaa qowlka haabitkaa baa ilaahay ku sugaa nolosha adduun iyo aakhiraba markay geeriyoonayaan iyo noloshooda adduunba iyo aakhiro markay tagaan ee xabaasha ku jiraanba ilaahay kuwaasi waa sugaa ayuha alaxiba marka meelaha aynu u baahanay inaynu toosnaano ama diinta ku sugnaana waa dhul tiro badan baabu shubahaat buu ka iman karaa waa in diinta qofka laga shaki geliyo casriganna aada u tiro badan waayo waa casri ay fududaatay xumaha in si fudud laysu gaadhsiin karo waa innagan mobil joobka ku wada sidanna ee dunida dabadeeda wixii bale ka dhacda laynoo soo warinayo ee lagugu akhrinayo maanta waxaaba fududaatay dad raba xumaha inay ku caanbaxaan oo raba dad badani inuu galo ilaan lacag baa lagu helayaay taasi waxay keensatay markaa shubahaadka la akhrinayo inay tiro badato waagii hore dadka waxa wax u sheegi jiray laba qolo uun dowladda oo idaacad ama t v lahayd oo warkeedu censorship soo maro ama waxaan la qoro oo madbacada soo maro censorship soo mara iyo sheekh membarka nebi maxamed iska taaga calayhi salaatu wasalaam oo isna diinta ilaalinayo diin ku sugan oo censorship kitaab iyo sunnaa mara isna hadda waa mimbaru man laa mimbara lah baynu ka maqalnaa maxaa la yidhaahdaa aljaziiri hadda nin waliba waa hadli karaa nin walibana waa warrami karaa nin walibana waa sheegi karaa censorshipna ma jiro cid waliba waxbay sheegi kartaa xataa soomaalidu kuwooda waalan bay dhegaystaan qaar waalanoo tiro badan baa bahalkan ka soo hadla maadaama shahwaadku ay badan yihiin shubahaadkuna tiro badan yihiin fitankaa tiro badan markaa sugnaantu inaan la suga mooyaane way yaraanaysaa dadku inay qumanaadaan wax sahlan maaha inay qumadanaadaan maanta waxay u baahantahay mujaahada bay u baahantahay hadday tahay shahwat اljins hadday tahay shahwat اlmaal hadday tahay shahwat اljaahi wالsulطaan xirsiga iyo طamaca tirada badan leh dadku maanta aad baa fitanku u badan yihi xagga diinta fitan baa ka socda oo ama ha noqdo dulmi iyo duqaad iyo dadka laaya oo xidha oo daroon ku toogta oo nafta isugu keena oo haddaad dhowr salaadood tukata ku odhanaya terrorist baa tahay
dunida maanta taasaa caan ka ah dadkii miidiyaha waaweyn ee dunida la dhegaysta lahaa summad waxay ka dhigeen qof kasta oo muslima inuu shaabadaasi iskaga shaabadaysan yahay marka kollayba marka hore dembiilaata inaad iscadaysa mooyaane halkay qaacidadu ahayd dadku inaanu dembiilayaal ahayn ilaa iyo dembi lagu suga mooyaane waa cagsiga hadda mar haddaad shahaadata dembiilaad tahay inaad iscadayso inaad dembi gelin mooyaane marka fitnadu waa tiro badantay qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa dad badan oo diintoodii lagu itixaamay fii suurati alkahf innahum fityatun aamanuu birabbihim kuwa ilaahay ku tilmaamaya godka galay min alqusuur ila alkuhuuf bay qaateen waxay idhahdaan abnaa'i almuluuk bay hayeen carruurtii boqorradu dhashay laakiin diin la'aan baa lagu qasbay dabeetana waxay doorteen inay iska hijroodaan xaggay u hijroodeen meel kale markay waayeen god bay galeen laakiin godkaasaa ilaahay ku badbaadiyo 300 sannadood bay god iska jiifeen oo ilaahay arsaaqayo ay jiifeen dabeetana la soo kaakiciyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda dhallin bay ahaayeen baa ilaahay leeyahay dhallin yaro ilaahay rumeeyey allana hanuun u kordhiyey aayaadkaasi marka ilaahay ka warramo cismada la raacinaya waxa weeyaan fitnatu diin qofka hadday ku dhacdo الصحبة الصالحة إيوه آخر حسوستي هذا لبدا صي آياتكم حاجة دمك المامية وحكى القرآن ينقول رمية قارية قال بلا يوقفتي أصحاب الأخدود سورة البروج كوي لهيك قول رمية مقالا وانت قدد الله قضي لما انت الدبل قريبا إلهي قرآن كقول رمية ومقالا اسكدن وأن اللي أنا ربي الرمية ويري وري أنا وإله بان الرميني دبتنا يجو أركية دبلغو قري وولي بدبك مركي لغو قرني إلا داوني إيانا تصالك لو شيغية دتكو الدين تودا سيدا يقول لك جينا وإله القرآن كينات المامية حتى هدي لغو قبيو إن الدين تادا هايسطو الدين تلقى لغا سارو تجروتو إن الدين تادا هايسطو سأوجد بين النبي عليه الصلاة والسلام حلقي ما كله شوقي يا خباب بن أرد صحابي قال له رنشري حديث البخاري وحليه النبي قال موسى اشتكوني يسقوا هرقوا ذلك كعبة شيفة أي نوني مبويل متوسط ببردة مركزانو ليلا الرسول كيسيو ما دي له إنه بريدت نبتنا الله نقول قرقاده ما دي له يقول نو يديس يجرجر وحنا بقول ردت كيدين كور رأي متكمل أنت الله قبضه قد الله قضه مشان هالكلاجة صاره أي اللي باللوك لا شيء حشري